munaasabadan oo maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa inay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah salaadiinta uqaashi ee waxgaradka waqooyiga iyo galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda Somaliland iyagoo sidoo kalena salaadiintan u soo jeediyay xisbiyada mucaaradka inay u hoggaansamaan go'aan kasta oo ay soo saaraan golaha guurtida annaga ka xaalsinay wixii reerkii kaaga yimaada dad kale maalinta 26 ayay dhaafin cashuuriyaan la bixinin kuwa waxaan leeyahay waa ilaahay ka baqda cashuurtu waa waxa wadanka lagu wado ee bilayska lagu siiyo guryaheena ilaaliya mushaharka iyo ciidamada jiida hore jooga waxa weeye waa dadka hayeelin oo dhaga hawdhigina gacantooda ku qaribayaan baan leeyahay wadanka waayo guurtida deynaga meesha dhiganay inay marjic inoo noqdaan wixii ay soo gooyaanna aynu ku kalsoonaano marka intaasan ka idhi laakiin xsaabta mid uma odhanayaayo war caankana ku socotaan shacabku ma kasbanaysaan waa ayba timid aflagaadooyin baa yimid xaasaskii baa la gaaray sida lagu kasban maayo shacabku kasban maysaan qarankeenu ku heshiino sida Soomaaliland ee waynu sanadgoor baranayaan gurtoodoodu arkayna waxaynu leeyahay waxaynu ku dadaalayna horta nabadda iyo deganaanshaha dawladdeena wanaagsan ee dooranay waa arkaysaa nimayo waxa la eega horumarka waxay qabatay waynu arkaynaa indhihii fayoob way arkayaan laamiyada horumarka dalka jooga mid walba waynu arkaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa xamse jaamac xuseen awowo Kalson TV Hargeysa guurtiyaal aan gelin guurtiyaal wax laga sheegi afar laatan ka sano guurtiga dhibada inoo aastay waqti ay wax ku dhiso waa la arki jiray laakiin maanta waayaan laga hortagi oo laga calaysiin iyadoo waxna kordhin waxa xumeeyay kolkaan ka hadla arrinka guurtida waxa weeyaan waxaan rag dheernahay in aan dadka ka sareyno ee ilaa inta ayna soo hagtay ee dawladnimada asaaskeedii iyo ilaa maanta soo waday weey iyada sidaa waxaan leenahay wixii farageliya ha ka daayo iyaduna xadgudub yaanay samaynin waxay tala soo talisana way noo talin jirtay waan la mahadin jiray waan ogolahay